السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ummadda islaamka waan salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta dadweynaha daafiyada ka joogtaan hawshan ka taagan sayrac baan rabaa inaan wax yar ka hadlo idinkoo iga raali ah waliba waxba iga qaldami kara bini aadan aan ahay wixii iga khaldama kulli shaydaan bay ka ahaatay wixii aan saxana xag alle ka noqotay soo lama dhihi jirin waxaanan wallaahi oo billaahi wa tallaahi inaanan cidna u eexanaynin ولا عيسى ولا سمرون ساين بيي ولا إساق ummadda islaamku sayn bay ii tahay waayo waxaan ahay qof muslim ah dhimanaya kaliya qabriga galaya cidana aan qabrigiisa xisaabtiisa la qaybsanaynin wixii kaliya ra'yigayga ayaan ka hadlayaa waxaan u sii hafeef dhiganayaa dadkeenu waxay noqdeen dad aad moodo inay wada xanuunsan yihiin ama si loo bedelay ama wada sixran hadalkaaga adoo si u wada ayaa si loo bedelayaa mana aha sheekadu saas kaliya wixii ra'yigayga ah fikirkayga ayaan ka dhiibanayaa horta intii dhimatay ee ku dhimatay magaalada Boorama dhalinyartaas Allah subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto qabrigooda ha u waasiciyo familiyadii iyo dadka ay ka dhinteen eheladii iyo hooyooyinkii iyo aabayaashiina samiriyayban Allah subhanahu wa ta'ala ha ka siiyo ahbaabi waxa aan ka calashan yaro kooban aan dhinacna wallahi u eexanaynin reerayday aw tolkay ehelkaygii ay sawayna su'aal weydiinaya horta su'aasha aan weydiinayo waxay tahay sidee isku qabadsiinaysaan reeyayo reetolkayow in aad shalay laynagu sheegto diradhaba oo abi axmed dhaho diradhaba magaalo Soomaaliyeed bay sad uga qayliseen salaadiin iyo ugaas iyo cid walba saa looga dhiidhiyay la ogaa sideed ku keenaysaan maanta boog unit kasta ma la dhahaa I don't know ma kariye laga soo la soo daabacayna loola tago la dhaho dhul baan goosanaynaa xuduuduna Itoobiya u furanta buugan xeer ciise noloshiisu waligii buu jiri jiray boqolaal sano soo jiri jiray ka awoow baa dadka loogu arrimin jiray xeer ciise wax cusub ma aha maanta odayada ciise ee sharafta leh waligood bay geed hoosti garta ku goyn jireen buugan maanta horeyna waa loogu calashan ugaasiyo waa loogu caleema saaray magaalada Saylac xeer ciisena wax nagu cusub ma ahina buugan maxaa ku jira waa in la isweydiiyo buugan waxa ku jiri waa maxay samaroon miyuu ka xaasid ku yahay ciise waa maya ma buugan ina la soo unistika wax ku lagu iyo wax ka soo horjeedaan cashan wuxuu ciise ka faa'iidayo oo samaroon ka xaasidaya miyaa jira weeyaa su'aasho waa maya buugan waxa weeyaan Itoobiya dabada ku wadato Yuhuud baa dabada ku wadato Imaaraad baa dabada ku wadato kaarta lagula dhuumanaya Ilaahay markaan ka baqno buugani waxa weeyaan buug dhulka Soomaaliyeed Itoobiya lagu siinayo runayna run beenayna been cidii hadalkayga igu nacaysa igu nacdo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu xaq sheega xaqaha lagu adimo magaalada Saylac iyo lug haya waxa la rabaa in la siiyo iyo macallim bad hadii la qaato barinkeedana waa la qaatay waxa la rabaa in lagu siiyo Itoobiya reer ayayday waxay ahaayeen dad ficil leh dad dhiig leh maalin walba waxay la dagaalamaysaa afar waxay la dagaalamay Itoobiyaan waxaad u dhibanaysaan dhulkiina sideed maanta ku keenaysaan unista inta unista ma la dhahay inta la tagtaan buug inaad radaan dhulkaana kale hala noo saxeeyo samaroon iyo ciise waligood bay dad ehelo oo isdasheeda hay wiil iyo abtiga intaas oo la wada deganaaye goorma ayay cadow noqdeen dhulka ma kaligiin baale waa maya dhulka waa la idin leeyahay waana la idinka badan yahay waana la idin degan yahay sidee marka xuduud la idinku goynaya waa maxay xoog iyo dulmigu ayeeyayaal iyo abtiyaal iyo ilmaadeerayaal waa maxay dulmigu Ilaahay laga cabsado hadiiba idinka la idin siinayo idinku dad dhul Soomaaliyeed boobaysaan waxa may ahaateen laakiin cadow baad u wadaan dhulka Itoobiyadu wadaan Itoobiyana taa ka dhul on leenahay Soomaali leedahay inayna qaadanayn ba wallahi dhimasha laga xiga hal shakhsi oo Samaroon inta ugu dambayso may fahmaysan taas halkaasaan uga baxaya marka waxaan leeyahay shalay in magaalada Dirdhawa la inagu sheegto la dhaho Oromo lahayd Oromana dhulkeeni ilaa baadiyaheeni dadkii xoolaha ni eegayna lay soo wada galayaan u soo socdaan xeebaha idinkuna aad maanta dhahaysaan sidan oo qariirad samaysateen ee waxaas waa dambi weyn ama taas dambi weyn aanu arkaa waana arkay waxa soo dhawaa waxa soo hubsaday okay taas halkaasaan uga tagayaa reer ayayday samaroona waxa leeyahay idinkoonan intii horta dhimatay way qornayd idinkoonan cidna xaqxagana cidna aan sii jiidanin dawladda dadka aad wax la samaysateen raashin xisaab ma wada xuma dad goba oo sharaf leh oo geesiina oo boqorro wax fahmaya ku jira wixii xashiish qashin inaga daaya oo si xun wax u fikiraya inaga daaya waxaas inagu ma rabno falaysa minna way kuwaas inaga inama matalaan runta marka laga hadlo kow madaxweynaha khalad baa ka dhacay qaladka madaxweynaha ka dhacay wuxuu ahaa haduu dhihi lahaa marka hore
arrintaas sayla absolute laguma qabanayo buuga kama raalinihin sheekadu halkaa may gaadheen inkastoo qornayd inay intan oo dad dhintaan ina dhaawacmaan oo qadarka rabbi la celin karin aanan ku kalsoonahay laba madaxweyne Cirra ay horta halkaas taas keentay okay reesha xisxaaqo mid baan ilaahay idin kana qadiyada Soomaaliland shalay u doodayseen meel walba xaflada uga dhigayseen dadkii dhisay waa reeboran maanta miyaad ka kaaftoonteen qadiyadii Soomaaliland oo intaasoo sano aad sugayseen i'tiraaf maanta ma inaad waxa la rabtaan inaad baabi'isaan oo reer gaar ugu ay noqotaan gobolka Awdal iyo Salal ay Itoobiya isku qaatay ilaa bad ilaa bari ilaan haddii bad wadanka badiisa la qaato barikiisana waa la qaatay ya samaroon meesha ugu degan yahay ugu badan yahay yuhuud degan yahay waa Itoobiya oo qoon la isku male dadkana waxay dhahayaan in dhulbahanta wuxuu ku tiirsanaa waxaan arkay dad dhahayo re'aad ilmaayeen tolkooda daarood ah in dhulbahanta sidaan samaroon cid kuma tiirsanayna samaroon cidna ku tiirsadaan uma baahna walaalayaal runtii sheegan ma jeclin qabiil iyo qabiil qashin aan galo laakiin anu xaqan ka hadlaya uma baahna isaga isku filan wadada Ilaahay badiyo balaariyay laakiin aqoon uma leedina dhulku dego ciise waan isnaqaana waa re'aartigayo waa re'ayigayo waa dhasheed banahay laakiin isaaq waxba kama yaqaano way fahmaysaan buuro haddii dagaalka saddexaad adduunku dhaco biyo aynan ka guudhayn oo wada mugdiyay degaan dadkani oo Ilaahay mooyaan cid ka saari karin marka reer Soomaaliland oo abtiyaal ilma abtiyaal waxaan ilaahay qadiyadii Soomaaliland intaasoo sano 30 sano la raadinay halka miyaad ku baabiisan taasi waa iga su'aal ninka iga soo jawaabay insha Allah marka waxa weeyaan Soomaali weyna waxaan leeyahay على dadka adduunyadani waa maalmo waa laga tagaya dad waxa jira dalyaqaan ah oo aan samaroon ahayn ciisan aan ahayn oo akishale oo gurgurale oo ummad oo madhibaan leh inta maxaa runta loo sheegi laayay runta maxaa loo sheegi laayay maxaa loo arki laayay maxaa xaq darrada socota maxaa reerkan loo kala qaban laayay maxaa runta loo kala sheegi laayay oo hadduu ciise qaladkiisa loogu sheegi laayay hadduu samaroon qaldayna qaladkiisa loogu sheegi laayay يا Soomaali way ma taa weydiinaya adduunyada waa maalmo reer adeerkay iyo reer kalena kulligood dhamaan inta ay saysatana waxaan u dirayaa inaad nabadda ku soo dabaashaan wada hadal ehelnimo dagaal wallahi billahi wiil baa ku dhinta mooyaane wiil kuma dhasho dagaalada isku ilaamiseen ugaas Mustafa ilaahay ka cabso dagaalka aad ilaamisay jooji dagaalka kale lagula qaatay ugaas kale kula qaatay ugaas Cabdirashiidna waan ka xunnahay waxa labadiinuba ma ka soo horjeedna waxa soo dhan marka waxaan ilaahay nabadda ha lagu soo dabaalo damiirkuna ha shaqeeyo dalkana Soomaali baa leh Itoobiyaan ma lihin naga daaya waxa dabada calaashan ku jira indaha dabadiisa waan ognahay baroorta orgiga ka weyna balaayada ayaa aloosay baa marka joojiya sheekada wada hadal iyo nabad ha lagu soo dabaalo reeraha iyo dadka ehelkee wada dhashay waanan idin salaamay intaan fiidiyaha ku soo qoolaya salaamu calaykum waraxmatullaahi